السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود kusoo dhawaada Atom Graphics. Maanta casharkeen wuxuu ku saabsan yahay sida loo sameeyo rounded rectangular. Waxaa soo furnaynaa Adobe Premiere Pro new sequence ya dhaheena. Sequence-geena waxaa ka dhigan doonaa GIF qaabka YouTube-ka camal. Markuu saan noogu soo baxo muuqaal soo gashan doonaa. Waa kana muuqaalkana soo gashaneena. Muuqaalkeena sidaan u eg yahay. Sidoo kale waxaa soo gashan doonaa hal muuqaal kale oo aan practice uga dhigi doonaa casharka. In yar ka soo goosaneena. markaas aan soo goosano qaybtan banaanka noo soo dhig qaybta marka noo soo dhigtid marka waxa soo gashan doonaa muuqaalkeena waxa ka bilaabi doonaa qaybta effectiga crop soo gashan doonaa crop marka soo gashto oo ku soo dhaxdeena sidoo kale waxa soo gashan doonaa effect la dhaho roughen edges isagana ku soo duldeena kadib waxa imaad doonaa qaybta effect controls marka qaybta effect controls imaado muuqaalkan waxa ku sameyn doonaa positionka scale-ka frame ku xiri doonaa daqiiqado left top right bottom kan waa ku xiri doonaa sidoo kale roughen edges kan waa ku xiran doonaa laakiin roughen edges oo soo laaban doonaa crop-ka qaadsiinayna crop-ka iyo qaybta position scale-ka intaas waxa gelinayna animation bilowga markiisana wax xirano wax kadib cabaar marka soo sikano waxa keeni doonaa qaybtan geeska and then waa u yaree doonaa scale-ka crop-kana qaybta top ka soo jari doonaa qaybta hoosena waa ka soo jari doonaa markii halkaas sheekada mareyso qaybta rafanka imaanayna meeshaas fureysa edge type-ka cut ka dhigay cut marka ka dhigto qaybtan border-ka wax yar badinaysa markuu saas noqdo qaybta edge sharpness-kana 0 waa ka dhigay marka 0 ka dhigtid qaybtan fractal influence-gana waxa ka dhigaysa 0 sidoo kale qaybta scale-kana wax yar waa badsan kartaa waana yareysan kartaa soo jeedid intaas marka muuqaalka sameeyna kadib waxa ku xireena animation asagana inta marka animation ku xirno muuqaalka soo bilaabi doonaa marka soo bilaabno kadib gadaal u celi doonaa intaan soo jeedid kadib muuqaalka fureena uu soo sikana muuqaalku soo dawoolan wajada hadda soo bilaabeena marka nala fiirso waxaan sahan ugu jiraa raadinta guulaha nolosheeda ee aanan cidna igu weylinin aniga naftayda soo jeedid daqiiqadaha ku badan meelahan camal markuu yahay intaan soo qabo inta keen hadda soo bilaabeena marka fiirso waxaan sahan ugu jiraa raadinta guulaha nolosheeda ee aanan cidna igu weylinin soo jeedid adi marba kasii dambeeso wuxuu rabaa ina animation isku soo dhaweeso animationku inta camal markuu yahay soo qaad u soo dhaweey marka adi marba ka dambeeso sida adi kugu fiican aad dooranaysa aniga isku sii dhaweena saasa ilaroon soo bilaab marka waxaan sahan ugu jiraa raadinta guulaha nolosheeda ee aanan cidna igu weylinin aniga naftayda wajada soma waa kaasa hadaarita waa seefsan kartaa qaab preset ahaan ka dhigi kartaa motionkaas aad dooranaysa adoo shift haya crop sii doorane and then waxa sii dooranaysa roughen edges right kaliya dhehe save as preset magaca ku qoranaysa kadib meeshaas aad dooranaysa anchor point kadib okay dhehe wuxuu ku noqon doonaa preset oo wuxuu ku soo gali doonaa qaybtan effect controls-ka qaybta ku dhigan waa effect kadib qaybtan preset marka soo furtid meeshaan ku soo dhaxgali doonaa hadda waxa rajeynaa in wax badan ka fahantay ku soo dhawaad Atom Graphics hadda hore noola joogto muuqaalina like da siin share gareys asxaab badan adoo kale u sii gaaraan haddaan ugu cusubtaan soo follow garey waa maasan tahay